تشكو المذلة باكيا فإلى متى ستظل تبكي شاكية أتطيب نافسا أن تثير مدامعي مثل النوائح ينتحبن سواسية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. درسيgan waa dersiga afaraad ee ka mida duruusta kitaabka متن الغاية والتقريب للقاضي أبو شجاع أحمد بن الحسن بن أحمد الأصفهاني رحمه الله. wuxuu ka bilaabanayaa dersiga maanta فصل والذي ينقض الوضوء 6 أشياء. wuxuu ka bilaabanayaa waxyaabaha weesada jabiya. darsigii u dambeeyey waxaan baranay weesada waxyaabaha arkaanta ee waajibaadka weesada la yiraahdo. waxaan kaloo baranay sunnooyinka weesada. haddana halkan wuxuu ka gelayaa waxyaabaha weesada jabiya. mar haddaad weese qabto oo weesadii waajibkeedii iyo sunnadeedii labadaba aada ilaalisay, ma dhici kartaa weesadii inay kaa jabto? jawaabtu waa haa, way dhici kartaa. sidaa daraaddeed wadaadku wuxuu yihi faslun waladii yanqudu lwuduu'a, weesada waxa buriya ama weesada waxa jabiya 6 ashyaa, waa 6 shay wey. weesada waxa buriya waa 6 shay. midka koobaad waa maa kharaja min asabiileyn, waa waxa ka soo baxa labada wado midkood, macnaha horay iyo gadaal waxa ka yimaada, macnaha kaadida ama saxarada. qofka hadduu musquul tago uu kaajo ama uu saxaroodo, markaa weesadii way ka jabtay. waxaa ka soo baxaya horay iyo gadaal. tusaalaha aan bixina ha noqdo ama wax kale ha noqdo oo aan muctaad ahayn, oo dadka bani aadamka inay ka soo baxaan aan ahayn. waxba hadday soo baxaan qofkiina horaan u weese qabay, waxaana ay ka soo baxaan horay ama gadaal, weesada waa jabtay. waa midka koobaad. weesada waxaa kaa jabinaya waxaa weeye haddii horay iyo gadaal ay wax ka soo baxaan. wadaadku wuxuu yihi allah u naxariistee, wannawmu calaa gayri hay-ati lmutamakin. wannawmu waa in la seexdo oo qofku u seexdo calaa gayri hay-ati lmutamakin, isagoo fadhiga aan ka buuxsanin ama garwaaxsanin ama salka aan dhulka ku qabanin oo si fiican aan u fariisanin, inuu u seexdo wey. annawm calaa gayri hay-ati lmutamakin, qofka oo seexda isagoo dhinaca dhulka dhigay, qofka oo seexda isagoo aan salka dhulka ku haynin, taa weeye annawm calaa gayri hay-ati lmutamakin. maxaa yeelay nebiga sala allahu calayhi wasalam waxaa laga wariyey oo xadiid cali bin abi aalib radia allahu canhu keyrkiiba ay wariyaan, inuu yihi wikaau sahi alcaynaan faman naama falyatawada. macnaha gadaal furkeedu waxaa weeye ama waxaa furaheedu waxaa weeye indhaha waardiye ka oo ilaalinaya. maxaa yeeley hurdadu waxay madino u tahay ama laga malaystaa inay qofka wax ka yimaadaan isagoona sogeyn. qofka markuu seexdo waxaa dhici karta neef inay ka soo baxdo isagoon la socon, waxaa dhici karta inuu cawradiisa taabto, waxaa dhici karta arrimahaasoo idil baa suuragala. sidaa daraaddeed maadaama ay hurdadu tahay sideedaba madina oo weesada jabiya, markaasaa nebigu wuxuuna yihi sala allahu alay wasalam, indhahan iyo qofka soo jeedka uu soo jeedo baa waxay yihiin waardiye ilaalinaya gadaal wixii ka iman lahaa. sidaa daraaddeed wuxuu yihi faman naama falyatawada, qofka seexda
hee maxaa la yidhahdaa ha weesaysto. jiifkaas marka laga reebo sidaan hadda u fadhiyo oo kale, qofku hadduu sidaa u fadhiyo ama kursi ha ku fadhiyo ama dhulka ha fadhiyee, haddii salka uu dhulka la helo oo si fiican uu dhulka u fadhiyo, markaa iyadaa jiifka noocaas oo kalaa ama jiif yar ha noqdo oo gamaaya oo iska khafiifa, ama mid wax yar kaa ka dheer ha noqdo, ama dhulka fadhi ama kursi ku fadhi ama gaari ku dhexdii fadhi, meeshaad doonto joogi, haddaad si toosan u fadhiisato oo aad is leedahay salka dabadaa dhulka ku haysaa oo waxba kaama soo baxayaan, hadday wax kaa soo baxayaanna waad ogaanaysaa, markaa iyadaa jiifka noocaas oo kalea weesada ma jebiyo. maxaa yeele Qataada radia allahu canhu wa ardaah baa wuxuu yidhahdaa waxaa maqlay Anas ibni Malik radia allahu canh isagoo dhahaya kaana asxaabu rasuuli llaahi sala allahu alayh wasalam, asxaabta nebiga waxay ahayn yanaamuuna huma yusalluuna walaa yatawada'uun, waa seexan jireen kadib bay markay soo kacaan bay tukan jireen, mana aysan weysaysan jireen. markaasaa Qataada la yaabay hadalkaas, wuxuu yidhi samictahu min Anas, warkaa ma Anas baa ka maqashay? Anas miyaa warkaa kuu sheegay? macnaha inta la seexdo masaajidka dhexdiisa la soo kaco oo aan la weesaysanin sidaa lagu tukado, Anas miyaa warkaa kuu sheegay? waa la yaabanye, ma nebigaa kuu sheegay buu leeyahy Anasow. markaasuu Anas wuxuu yidhi qaala ii wallah, ilaahan ku dhaarta haa nebigaa ii sheegay. macnaha waxaan ka wadaa cafwan, Anas ninka ka warinaya Qataada baa weydiinaya Qataada, wuxuu leeyahay Anas miyaa warkaa ka maqashay in saxaabada nebiga ay sidaa samayn jireen? markaasuu leeyahay ii wallah, haa allaan ku dhaartee nebigu saasuu samayn jiray sala allahu alay wasalam. ii wallah, qaala samictuhu min Anas, ii wallah Anasaan ka maqlay ha inay saxaabada nebigu sidaa samayn jireen. idan hurdadaa laga hadlaayo hurdadaa aan tilmaamay, hurdo noocee weeye? waa hurdo qofka uusan dhinaca dhulka dhigaynin, waa hurdo adigoo fadhiyo aada seexanayso, fadhigan aad tahay inaad salka dhulka la heshay oo aad wixii kaa soo baxaya dareemi karto, sidaana indhaha isugu qabato. markaa kadib haddii sidaa ay wax u dhacaan, waxay noqonaysaa hurdada aada huruddo markaa iyadaa hurdo aan weesada kaa jebinin. ama dhulka fadhiiso ama kursi ku fadhiiso ama gaari ku dhex jir oo kursiga gaariga ku fadhi, qaab aada is leedahay waxba ka hadday kaa soo baxayaan waad dareemaysaa. haddaad u fadhiisato hee weesada kaama jabayso, oo marka aad seexataan ujeedaa weesada kaama jabayso. wadaadku wuxuu yidhi raximahu llah wazawaalu lcaqli bisukrin aw marad. arrinka saddexaade weesada jebiye waxaa weeye caqligu inuu zuulo, caqligaa kaa tegey, miirkii baa kaa tegey, bisukrin aw marad, ama qofka isagaa iska tagsiiyey oo sakhraan buu noqday, ama waa xanuunsaday xanuun dartiis. xanuunada qaar waxaa jira saad qandhada ku qabataa darteed taad la wareerto garaadka uu kaa tegayaba, marka caqligii oo dhan buu uzuulayaba, waxba aadan kala ogeyn, oolyadii biyaha aad isku darayso. marka noocaasoo kale uu yahay zawaalka caqliga, qofkaasu ma oga inuu kaadshay, inuu saxarooday, inay neef ka timid ma oga, wax ka soo baxayba ma oga. ammaanka ma xirna, macnaha ammaanku waa furan yahay. mar hadday sidaa tahay, marka waxaa laga malaysan karaa inay wax ka yimaadaan isagoon isogeyn baa laga malaysan karaa. hadday sidaa tahayna marka weesadii wuu jebinayaa. marka sidaasa waxaa loo yidhi zawaalu lcaqli bisukrin aw marad, weesaduu jebiyaa.
وارنك السدحات وذاتك وحير رحمه الله ولمس الرجل المرأة الأجنبية من غير حائل أرنك أفراد وسد الجبية وحاوي تابشد ننك أو تابتو هويني قف ضمرة قبر كأجنبية من غير حائل أو تابتو تاد لآن يضو واحد حياي سنجرين جير كذا يجير كيسة وأن وحبه دحينين بايستابت marka iyada weesada waa ku burtaa qof dumara oo ka ajnabiya taabashada la taabtaa weesada waa ay burisaa maxaa yeelay allah subxaanahu wa tacaala qur-aanku wuxuu ku yidhi aayaddii ku jirtay suuratu lmaa-ida oo markaa weesada ka hadlaynay wujuubkeeda aan soo qaadanay yaa ayuha aladiina aamanuu idaa qumtum ila asalaati aayaddaa waxaa ku jiray aw laamastumu nnisaaa oo culimmada qaarkood ay ku fasireen dumarka haddaad taabataan haddii jirkiini jirkoodu ay istaabtaan weesada waa ay burto waa ay jabtay haweenka laga hadlaayo dumarka laga hadlaayana waa dumarka ajnabiga kaa ah ajnabi dadka kaa ah waxaa laga wadaa qof aada guursan karto ama bilaxraa loo ishtihoon karo qofkaa wey qofka guurkiisa uu kuu bannaan yahay uusan kaa xaaraanahayn abadi dadka ajnabiga aan kaa ahayn dabcan waxaa ka mida hooyada walaasha gabadhaa dhashay habaryarta eedadaa ayeydaa dadkaasoo idil waa dad aan ajnabi kaa ahayn sidoo kale xaaskaaga hooyadeed gabadha aad qabto hooyadeed ayadana ajnabi kaama ah gabadhana ninka qaba aabbaheed ajnabi kama ah intaa aan adigu ragga u tirinay dumarkana waa ay leeyihiin oo ayaguna weese kama jebiyaan oo kama gadaan fa calayhi weesada marka aan leenahay qof ajnabiya waa uu kaa buriyaa haddaad taabato wuxuu kaa burayaa 5 arrimood marka lagaa helo marka 5 arrimood la helo taabashada qofka aad taabato weesada waa ku jabaysaa arrinka koobaad waxaa weeye dadka istaabta waa inay yihiin dad kale jinsi duwan rag iyo dumar waa inay istaabtaan hadday gabar taabato nina nin taabto weese ma jabin weesadii ma jabin arrinka labaad waxaa weeye waa in la isku taabto jirka waa in la taabto meel ka mid a waa in jirka la taabto markaan leeyahay jirka waa in la taabto waxaa ku baxaaya ilkaha cidiyaha tinta taabashadooda weese kuma jabto ciddi baa taabatay ilig baa taabatay timihii baa taabatay weese kuma jabto arrinka afraad waxaa weeye waa inaysan waxba idii dhexayn xaa-il waa inuusan jirin tusaale maradaas korkeeda haddaad taabato weesadii ma jabto haddii aad halkaa taabato bannaanna weesadii waa ay jabtaa marka waa inaysan waxba u dhexaynin labada jir waxba waa inaysan u dhexayn arrinka xigaa waxaa weeye qof walba waa inuu yahay qof loo ishtihoon karo oo gaaray xadda tamyiiz oo kale waa inuu yahay qof loo ishtihoon karo loo hawoon karo arrinka u dambeeyana waa aysan maxram ahayn maxramiyo waa inaysan meesha ku jirin halkaa waxaa ka soo baxay marka su-aal ah xaaskaaga weesada makaa jebisaa xaaska adiga aada qabto ee maxramka aada u tahay markaa iyada weesada maxaarimtaada ka mida weesada makaa jebisaa jawaabtu waxaa weeye sida saxiixaa xaaskaaga weese kaama jebiso waxayna ka mid tahay dadka aan ajnabiga kaa ahayn xagga markaan
walamsu lmar'ati alajnabiyati la dhahayo xaaskaaga ajnabi kaama aha mar haddii lagu yihi hooyadeed ayada waase kaama jebiso ayadana inaysan kaa jebin baa saxiix ah inay jebiso xaaskaaga waase kaa jebisana wax daliila oo saxiixa oo sariixa oo aan mucaarad lahayn ma jiro waana masalo khilaafkeedu uu qaa'im ahaa ilaa laga bilaabo waqtigii saxaabada ilaa maanta culimmadu ay isku haystaan waxaase annagu aan u aragnaa ama aan isleenahay sida saxdaa inay tahay xaaskaaga weeso kaama jebiso waxaa soo haray masalo kale taabashada la taabanaya ma shardi baa qofku inuu qofkan bishahwatin inuu u taabto uu dan ka leeyahay iyo inuuna u taabanin biduuni shahwa dadku haddiiba mar ajnabi ay kaa yihiin taabashada aada taabato mujarad taabashada gacantaadii gacanteeda ay istaabtaan qof ajnabi kaa ah asalka soo xaaraan kaama ahayn haa mar hadday sidaa tahay taabashada aada taabatay ama adigu dan ka lahow taabashadaas ama ha ka lahaanin oo gacmihiin waa isku dhacaan waad ka weese qaadanaysaa xaaska aada qabtana xaaskaaga haddii aada taabato taabashadaa aada taabatay haddii ay tahay biduuni qasdin oo gacantiinu isku dhacday wax kalena aadan u jeedin markaa iyadaa taabashada noocaas oo kalea weesada kuma jabto iyadana waa taan hadda niri sida saxiixa ah laakiin haddii ay tahay taabashadu bishahwatin haddii ay tahay oo qofku dan kale uu leeyahay taabashada noocaas oo kalea uu dan ka leeyahay markaa iyadaa waxaa habboon qofku inuu weese qaato baa habboon halkaa haddaa uga baxo masalada afaraad wadaadku wuxuu yihi raximah اllah wamasu farji اlaadamiyi bibaطini اlkaf arrinka shanaad ee weesada jabiye waxaa ka mid a qofka bani aadamkaa inuu taabto cawradiisa oo uu ku taabto calaacasha baatinkeeda halkaas labadaa meeloo isku daboolmo wey halkaa inuu ku taabto bibaطini اlkaf inuu ku taabto meel ka mida intaasu hadday ay taabato xubinka taranka ragga iyo dumarka ama kaaga ama qof kaloo bani aadam walow sabiyin caruur ba ha noqdo hadduu rabo ilmo yar oo laga bedelahayo maxaa la yidhaahdaa la nadiifinayo baambarkii laga bedelahayo haddii qofkii ka bedelahayo markaa iyadaa cawradiisa uu taabto weesadii waa ay ka bureysaa hadduu weese qabay qofkaa weesadii waa ay ka bureysaa idan masu farji laadamiyi looma fiirinayo markaa ma qof yarbaa ma qof weynbaa loo fiirin mahayo wadaadku wuxuu yihi raximah اllah wamasu xalqati duburihi cala jadiid arrinka lixaad ee u dambeeya ee weesada waxa buriye ah wuxuu yihi wadaadku waa qofka inuu taabto xalqatu duburihi duburka gadaal ama dabada wareegeeda inuu taabto meesha ay saxaradu ka soo baxdo wey meesha ay najaasada ka timaado halkaa haddii uu qofku taabto weesada waa ay ka burtay weesada waa ay ka jabtay laakiin waa sidee wadaadku wuxuu yihi cala aljadiid cala aljadiidi waxaa laga wadaa haddaan qaadano oo marno sida qowlka jadiidka uu yahay qowlka jadiidka imaam shaafici raximah اllah kitaabka markaan bilaabayay darsigii ugu horeeyey waxaan ku sheegay imaamu shaafici raximah اllah aqwaashiisa in loo kala qaado qowl jadiid iyo qowl qadiim waa muhimtaa inaa kala taqaano alqowl اlqadiim wاlqowl اljadiid alqowl اlqadiim waxaa laga wadaa imaamu shaafici raxmat ullaahi calayhi markii uu joogay ciraaq kitaabadii uu qoray ama wixii uu fadwooday
ama duruusta uu bixiyey wixii uu ku sheegay baa waxaa la yidhaahdaa qowlka qadiimka ee imaamu shaafici. baqdaad buu deganaa, halkaasuu sheekh ka ahaa, duruusta ku dhigi jiray, arday fara badanuna ay ku tixnayd. cilmigii markaa laga qaatoo laga dhigtay iyo fahamkii markaa axaadiidta nebiga iyo aayaadka qur-aanka uu ka fahmay waxaa loo yaqaanaa qowl qadiim weeyaan, haddii qowl noocaas oo kalaa la keeno. waalqowl ljadiid waxaa weeye isagana qowlka jadiidka, imaamku wuxuu ka soo guuray ciraaq, wuxuu soo degay masar sanadda markay ahayd 199 buu wuxuu soo degay masar. markaasaa waxaa u soo baxday masaa'ilka qaar oo uu ku ijtihaaday inay ahayd khalad oo uu ka noqday. khalad bay ula muuqatay, maxaa yeeley wuxuu helay daliilkii imaa xadiidka nebiga sala allahu alayh wasalam ama aayadda qur-aanku wuxuu ka fahmay dilaalo ama aysan ku tusaynin, macnaha uusan ka fahmin markii hore buu ka fahmay. sidaa daraaddeed buu aragtidiisii bedelay. xilliguu masar deganaa marka oo uu joogay, wixii uu qoray ama uu fadwooday ama uu dadka barayna waxaa loo yaqaanaa alqowl اljadiid. alqowlu aljadiid wixii inta aan ahayn marka, tusaale qowlkii markuu ciraaq joogay wixii uu yiri oo uusan ka noqonin, qadiim iyo jadiid bu waa isla yahay, leanna ka noqosho uma baahnaba. shayga diinta aad aaminsan tahay oo aad tidhaahdo sidaasaan qabaa, haddii uusan kuu muuqanin qaladkiisa qowlkaa waa qabtaa, kaa marka ma tirinayno. madhabka shaaficiyada marka la joogo marka, imaamu shaafici waxaa la qaataa qowlkiisa jadiidka ah, waxaa la qaataa qowlkiisa jadiidka, sidaasaana la fadwoodaa ilaa masaa'il yaryar oo masaa'il yaroo kooban mooye, oo bacdu ahlilcilmi ay ku sheegaan 28 masalo, qaarna ka badiyaan qaarna ka yareeyaan. masaa'ilkaas 28 ah baa waxaa la rajaxaa oo la yidhahdaa waxaa xoog badan alqowl alqadiim. alqowlu alqadiim marka haddaad maqasho aljadiid waxaa ka soo horjeeda alqadiim, haddaad maqasho alqadiimna waxaa ka soo horjeeda aljadiid, waa iska soo horjeedaan. imaamku marka mar walbaba wuxuu raacayey kitaabkan ilaahay subxaanaه watacaala iyo sunada nebiga salى اllahu alيه wasalam. kitaabka allah subxaanaه watacaala iyo sunada nebiga buu raacayey mar walbaba, ama ha joogo masar ama ka hor ha joogo ciraaq, labada marba wuxuu ahayd qasadkiisu inuu raaco kitaabka iyo sunnaha. laakiin waxaa dhacaysay inuu khilaafo kitaabka iyo sunnaha, inuu dhinac maro asagoo ama naska aan soo gaarin oo markaa ijtihaaday. wuu ka dardaarmay marka imaamka wuxuu yidhi idaa saxa alxadiidu fahuwa madhabii, haddii xadiid nebi maxamed uu ka ansaxo oo xadiidku uu saxiix noqdo, aniga madhabkayga waa xadiidkaas saxiixa. waa qalad marka qofku inuu ku dheganaado qowl uu leeyahay imaamu shaafici, iyadoo weliba ay u caddaatay nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam inay ka sugan tahay qowlkaa wax khilaafsan. madhab shaafici ma haysatid, sidaana maaha sidii imaamu shaafici raximahu llahu uu rabay. halkaa marka waxaa kaaga soo baxay culimmada islaamka qadiiman wa xadiidan hal qowl wax ka badan way yeelan karaan. maantay buu masalo kuu fadwoon karaa, berrina waxaa dhici karta wixii uu shalay kuu fadwooday wax ka duwan inuu kuu fadwoodo. lama dhahayo wadaadka waa tanaaquday, waa isburiye warkiisa, la dhihi maayo. haddii warka uu fadwoonayo ama uu isku khilaafay uu yahay masaa'il fiqhiya, sida halkaan aan ku arkaynoo kale imaam shaafici raximah llah waxaa laga soo guuriyo qowl jadiid iyo qowl qadiim ah, waa masaa'ilka fiqigaa wey, usuul اdiin ma aha, caqiide ma aha. imaam shaafici raximah llah waxaa laga soo guuriyo
xasaba cilmi facalayhi waxaa weeye masaa'ilku hadday yihiin caqiido dhinaca kalena aysan ka mid ahayn masaa'ilka culimmadu isku khilaaftay aysan ka mid ahayn ama ay ku saabsan yihiin masaa'ilka masaa'il اlkufri wاliimaan dhinaca kalena aysan ka mid ahayn culimmadu waxay isku khilaafeen inaad adigu ka aaminto mas'aladaa cidda waxaa sidaa iyo sidaa samaysa waa qof ahlu bidca bidca mufasiqa ama bidca mukafira labadaa mid qof bidco ku dhacay bidcadii wax gaalaysiinaysay iyo midaan wax gaalaysiinayn intaba haddaad ka aaminto waxaa lagama maarmaanaya inaad qaacidadaa ku socoto cid walboo markaa gashana hadhow aada qowlkaa dul saarto tusaale qur-aanku waa makhluuq ninka aaminsan muxuu yahay waa ahlu bidac akharu ahlilcilmina ay aaminsan yihin inaanuba muslin ahayn inuu gaal yahay bay aaminsan yihin akharu ahlilcilmi idan haddii wadaad aada adigu jeceshahay uu yidhaahdo ama la helo aqwaashiisa aqwaal ka mida isagoo u nusraynaya oo u gargaaraya madhabkan odhanaya qur-aanku waa makhluuq haddana aakhiru xayaatihi la helo hadal loo malaynayo inuu ka noqday warkaa inaad tiraahdo wadaadkaa ma qabin alqowlu bikhalqi اlqur'aan ama wadaadkaa jahmi iyo muctasili ma ahayn waa qariska xor weeyaan waana kalad nafsa shay waxaa la mida dawaaqiidta wax ku xukunta kitaabka ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ahayn oo dastuur iyo qaanuun samaysta haddaad adigu aamintay inayan ku gaaloobaynin dastuurkaa iyo waxa ay samaysteen dhinaca kalena aada aaminsan tahay ninka gaalaysiiye daaquudkaas caynan ama cumuum ahaan u tagfiiriyaa inuu khawaarijta ka mid yahay haddaad aaminsan tahay waxaa lagama maarmaana wadaad walba oo arrintaas ku dhaca marka inaad sida aad ka aaminsanayd la dul korto tusaale waxaa jira wadaaddo aqwaashoodu ay sariix ku tahay takfiiru alxaakim aladi yaxkum bilqawaaniin alwadciya xaakimka qawaaniin wadciya wax ku xukuma in la takfiiriyo dhinaca kalena nimankan doodahaya ay sheeganayaan inuu wadaadkaa ka noqday waxaan leenaha marka laba islama helaysaan wadaadkaanu inuu ahaado sunni markii hore uu aaminsanaa takfiiru lxukaam iyo inuu ahaado sunni markii uu ka noqday xasaba qowlikum ama zacmikum sidaa sheeganaysaan laakiin ma jiro lamana soo helayo wadaad hore inta u aaminsanaa ka noqday oo wadaadada muctabiriinta masalada waxaan u keenay marka yaan laydinku waabsanin culummadu way isku khilaafi macnaha qowlka shayku waa iskhilaafi karaa qowl qadiima iyo qowl jadiida oo shayku waa yeelan karaa waxay ku xiran tahay biikhtilaafi alasmaani biikhtilaafi الzamaani wاlmakaani wاlaxwaal xaaladda iyo zamanka iyo waktigay ku xiran tahay isbebedelka wadaadku iyo fadwada sida ay tahay yaan taa laydinku harowsanin oon laydinku waabsan sida saxdaa waxaa weeye qowlku hadduu yahay fiqi nacam khilaaf waa ka dhici karaa haddii qowlku laakiin uusan fiqi ahayn oo masaa'il alcaqiida ay tahay khilaafna uusan ka furnayn marka iyadaa laba qowl inaad ka yeelataa waa walow kaana min cindi gayri اllaahi lawajaduu fiihi ikhtilaafa kahiira adigay wax kaa qaldan yihiin ee diintu ma qaldanee iska sax weeyaan halkaa wadaadku wuxuu uga baxay waxyaabaha weesada buriya wuxuu halkan ka gelaya qubayska marka qubayskana wuxuu ku bilaabayaa waxyaabaha waajibiye qubayska wuxuu yihi faslu waladii yuujibu اlgusla sitaةu ashyaa
qubayska waxyaabaha waajibiya waa 6 shay wey 6 shay baa qubays waajibisa 3 tashtariku fiiha الrijaalu والnisaa 3 waxyaabood rag iyo dumarba waa ay wadaagaan waa ka siman yihiin ragga hadday ku dhacaanna qubaysaa laga rabaa dumarka hadday ku dhacaanna qubaysaa laga rabaa xaalaadkaas 3da wahiya waxayna kale yihiin iltiqaa'u اlkhitaaneyn xaaladda koobaad labada gudniin inay kulmaan meesha ragga laga gudo iyo dumarka meesha laga gudo inay kulmaan oo istaabtaan labadaas taabashada ay istaabteen waxaa ku waajibaya qubays ninkina waxaa laga rabaa qubays gabadhana waxaa laga rabaa qubays labadoodaba qubays baa ku waajibaya shardina maaha inay biyo ka yimaadaan oy dejiyaan leanna nabiga sala allahu alayh wasalam waxaa ka sugan min xadiidi abi hurayra inuu nabigu yihi idaa jalasa bayna shucabiha alarbac huma jahadaha faqad wajaba alguslu xadiidkii muttafaq calayhiga ahaa haddii ninku uu ku fadhiisto gabadha afarteeda tiir dhexdeeda kadibna uu dadaalo waxaa waajibay qubays macnaha hadday labada gudinin istaabtaan weeye xadiidka abi saciidin alkhudri isagana wuxuu ahaa inama almaau min almaa biyuhu waxay ka ahaadeen biyo xaggooda taana waa arrinka labaadoo wadaadku wuxuu yihi wainzaalu lmaniyi biyo hadday kaa yimaadaan biyuhu hadday ku yimaadaan jimaac iyo jimaac la-aan intaad seexatay baa waxaa soo kacday adigoo qoyan waxaa waajib kugu ah qubays mani baa kaa timid qubays baa waajib kugu ah inama almaau min almaa waalmowt dhimashada qofka dhinto in la meyro oo la dhaqo waa waajib iyadana qusli baa waajiba qof walboo dhinto rag iyo dumarba in la dhaqo waxaan ugu tegi doonaa hadduu ilah yihahdo kitaabu ljanais kitaab dhan baaba loo caqidaya halkaasaa ugu tegi doonaa in sha allah wadaadku wuxuu yihi raximah llah wahalaaثatu takhtasu biha الnisaa 3na dumarkaa la gaara wahiya waxaa weeye alxaydu waa 3 weeyo 2 ka mida ay dhiig tahay dhiigga koobaad waa dhiigga xaydka la yihaahdo dhiig xayd la yihaahdo wuxuu ka yimaadaa gabadha iyadoo caafimaad qabto dhiig ku dhaco wey ilaahay subxaana wa tacaala baana u qoray katabahu اllahu calى banaati aadam nabigay ka sugan tahay sala اllahu alيه wasalam inuu yihi ilaahay baa haweenka dumarka u qoray inuu ku dhaco dhiiggaa isaga ah wاnnifaas arrinka labaadna waxaa weeye gabadha marka ay dhasho dhiigga ka yimaada haddii gabadha ay dhasho dhiigga ka yimaada wakti buu socdaa ugu badnaan ilaa 60 beri miyaa lagu sheego muddadaa uu ka socdo ka qubaysan mayso markii uu dhammaado dhiiggaas waxaa waajiba inay ka qubaysato arrinka saddexaadna waxaa walwilaada gabadhii uur bay lahayd way dhashay dhalitaankaas dhiig dambaba yuusan ka imaan hadduu rabo dhalitaanka ay dhashay waxaa waajib ku ah qubays inay qubaysato baa ku waajibaya 6daa waxyaabood waxyaabaha waajibiye qubayska wey qofku ma tukan karo isagoo qubays la imaanin 6daa shay mid ka mid a hadduu ku dhaco wadaadku wuxuu yihi wafaraa'id اlgusli faslu wafaraa'id اlgusli 3 ashyaa halkaa wuxuu ka galay haddaad soo baratay qubayska waajibka ah qubayskaas wuxuu leeyahay arkaan iyo tiirarka qubaysku waa imisa marka wuxuu ku yihi wadaadka wafaraa'id اlgusli 3 ashyaa qubayska waajibaadkiisu waa 3 shay weeye 3 shay qubayska waajibaadkiisa wey anniya midka koobaad waa inaad niyeysato waxaad niyeysanaysaa inaad qubays waajiba qubaysanayso qubays waajiba inaad niyeysanayso oo xadaثu اlakbar aada iska dulqaadayso 2 xadaثaa jirta xadaثu اlasqar iyo xadaثu اlakbar xadaثu اlasqar waa maxay waa markaad weeso u baahan tahay xadaثu اlakbarna waa maxay
ومركات أباهن تهي قبيس حدث الأكبر مركا واد قبيسانيسا حدث الأكبر باكو هيا حدث الأكبر إن هذا اسككر قادة يسبب نية سنيسا سياد صلاة وتكتو وذلك يحير وإزالة النجاسة إن كانت على بدنه ركن اللباد يتير كاللباد وحاوي نجاسة قفك إنو اسكزوليو نجاسة إنو اسكزوليو هي إن كانت على بدنه هذه جركيسة نجاسة يكتال نجاسة جركا يكتالي قبيسنا والغار ربا marka hore najaasada iska zuuli oo iska bi iska dhaq markaad najaasada iska dhaqdo kadib qubayska qubayso markaa iyada markaa kadib qubayso wadaadku wuxuu yidhi raximahu llah wa isaalu lmaa'i ilaa jamiici ashacari waalbashara arrinka saddexaad ee tiirka ka mida tiirarka qubayska waxaa weeye wa isaalu lmaa'i biyihii gaarsiintooda oo la gaarsiiyo ilaa jamiici ashacari tinta dhammaanteed tin oo dhan madaxa oo dhan in la gaarsiiyo meel walboo tin ku taalla biyaha inay galaan oo ay ka dhargaan oo laga wabxiyo si fiican biyaha loo geliyo iyo walbasharati jirkana biyaha in laga dharjiyo ma ahan markaad qubaysanayso inaad balalaq biyaha inta ka siisa soo cararto maaha dhinaca kalena maaha ciyaal yurub inaad noqoto ciyaal yurub ma taqaanaa musqushaa la dhex seexanayaa barkin keliyaa ka maqan inta musqusha la galo la dhex seexdo waxaa lagu jirayaa saacad 2 saacadood baa lagu jiraa musqusha taasna looma baahna waa meel shaydaan weeye meel loo baahan yahay la rabo in maanta dhan lagu dhex jiro maaha dantaada ka fusho kadibna ka soo bax maxaa meeshaan ku dhex dhigay qolyaha reexa markaa waxay dhihi jireen nin reer baadiyaa oo aan weligii arag saabuun baa magaalo yimid gabadhiisa u soo martiyey gabadhiisa markuu u soo martiyaa musqusha biyo loo geeyey musqul xiranna midhaa weligii ma arag biyaa loo geeyey shukumaanna waa loo dhiibay saabuunna waa loo dhigay meesha odaygii shukumaankii buu dhulka ku fidsaday waa ku fariistay markuu ku fariistay buu saabuuntii soo qaatay wuxuu bilaabay inuu cuno saabuuntii wuxuu u maleeyey kurus saabuuntii buu sidaa u cunay biyihiina waa ku cabay meeshu wuxuu u maleeyey meel loogu talagalay in raaxa markaa ku sheekeeya calaa ayati xaal musqusha waxaan uga jeedaa fadhigeeda iyo maxaa la yidhaahdaa ku jiritaankeeda wakti badan looma baahna qofka dantiisa uu lahaa markuu gaaro horaa ka soo baxo keliya waxaa kugu filan wakti yar inaad ku jirto markay u badato 10 daqiiqo 15 daqiiqo waa u badan tahay weliba qubays marka aad gelayso 15 daqiiqo sidaad doonto ilaa 20 daqiiqo sidaad doonto soo dhaqo laakiin saacad baan ku jirayaa iyo 2 saac meesha iska hurdaayaa iyo ha la iska ilaaliyo khatar weeyaan halkaa marka saddexdii shay oo qubayska arkaantiisa ayd buu halkaa uga baxay halkaa waxaa laga gelaya sunan lwuduu oo gusl qubayska sunankiisa sunan buu leeyahy wadaadku wuxuu yihi wa sunanuhu 5 ashyaa 5 waxyaabood qubayska marka la qubaysanayo waa la suneeyaa midka koobaad wuxuu yihi waa atasmiyatu waa in la yidhahdo bismi illaahi raxmaan raxiim inta aadan qubaysanin ka hor waxaa leedahay hee bismi illaahi araxmaani araxiim waa annaga ku soo marnay weesada marka aada qubaysanayso waa 2 mid inaad musquul ku dhex jirto inaad banaankaas cad aada taagantao adigii cirka waxba idiin dhexayn adigii cirkaba waxba idiin dhexayn banaan cad aad ku qubaysanayso dadka baadiyaha jooga sidaasay ku qubaystaan musquul dhisan uma jirto banaankaasaa la istaagayaa biyahaad isku boobaysaa okay haddii xaalku sidaa yahay meel banaanaad joogto bismi illahi raxmaan raxiim inaad dhahdo dhib ma laha haddii laakiin musqulahan dhisan aada gelayso
musqusha dhexdeeda dikri ilaahay subxaana wa tacaala lama ogolo sidaa daraaddeed bisinka maxaad ku bedelaysaa inaad dhahdo waad niyeysanaysaa bismi illaahi araxmaan raxiim waad niyeysanay niye ahaan baad ula imanaysaa sunno weeye wadaadku wuxuu yihi raximah llahu walwuduu'u qablah arrinka labaad ee sunnada waxaa weeye qubayska ka hor inaad weesaysato sunno wey waa sunna lianna nabiga sala allahu alayh wasalam markuu janaabo ka qubaysanayo wuxuu ku bilaabi jiray marka hore gacmihiisu dhaqi jiray kadib buu gacanta midig biyaha ku shubi jiray oo sidaas uu u dhaqi jiray markuu labada gacmood sidaa u dhaqo kadib uu cawrada iska meyri jiray kadibna waa weesaysan jiray wuduu'ahu lisalaa bay caaisha leedahay radia allahu canha wuduu'ahu lisalaa sida uu weesada salaada ugu weese qaadanayo buu u weese qaadanayaa nebigu sala allahu alay wasalam weese kaamila oo dhammaystiran oo sunankeedii iyo arkaanteedii iyo hay-aadkeedii wadataa la imanaysaa ogow hadda weesadaa iyadaa ma ku tukan kartaa haddaa inta weesaysato iska baxdo adoo qubaysanin ma ku tukan kartaa weesadaas waa may weesadaa waxaa loogu talagalay oo keliya waa alwuduu qabla algusli wey qubays ka hor laakiin markii aada qubaysatay kadib weese ma u baahan tahay adigoo hore u weesaystay uma baahnid ma u baahnid marba haddii qubayska aada qubaysanayso uu yahay qubays waajib ah waxaad ogaataa weese inaad ka dambeysiiso uma baahnid inaad ka hormarisana waajib ma aha waa sunna waa sunna inaad ka dabamarisana waajib ma aha marnaba weese qasab kuguma aha fa calayhi waxaad samayn kartaa marka aada qubaysanaysaad niyeysanaysaa inaad qubayskan weesadiina uu kaaga kaafinayo uu kaaga filan yahay maxaan ku idhi qubayska aada qubaysanaysa waxaad u niyeysanaysaa qubayska iyo weesadii labadaasaa u niyeysanaysaa markaa iyadaa weese danba lagaama rabo ama ka hormari weeso ama ha ka hormarin wadaadku wuxuu yihi raximah اllah wa imraaru lyadi cala اljasad gacanta oo la marmariyo jirka waa shayga sunnada ee saddexaad wey biyihii baad isku shubaysaa gacmaha inaad ismarmariso waa sunno wadaadku wuxuu yihi raximah اllahu walmuwaalaatu arrinka afaraad ee ka mida sunnada sunnooyinka weesada waa inaad weesada xiriiriso aadan kala waxaan ujeedaa sunnooyinka qubayska waa inaad qubayska xiriiriso aadan kala goyn qubayska inaadan kala goyn wey akhiiran wadaadku wuxuu yihi ugu dambeyntii raximah اllah wa taqdiimu اlyumna cala اlyusra midig in laga hormariyo bidix oo midig lagu bilaabo nabiga sala اllahu alay wasalam dhaqankiisay ahayd marka uu qubaysanayo marka hore dhinaca midig buu biyaha ku shubi jiray kadibna dhinaca bidix buu ku shubi jiray kadibna halkaa bartankaabuu biyaha ku shubi jiray sala allahu alay wasalam saasuuna u qubaysan jiray sidaa weeye sunnada nebiga sala allahu alay wasalam wadaadku wuxuu yihi faslun waliqtisaalaat lmasnuunatu 17 guslan halkaa wuxuu ka gelayaa haddaad soo baratay qubaysada waajibka iyo waajibaadka qubayska iyo sunnooyinka qubayska waxaa jira qubays sunno ah baa jira oo aan waajib ahayn qubays sunnaah baa jira marka uu ku dhahayana baabkaa ku ogaan doontaaye qeyb ka midana sunnanimo waxaa laga wadaa nebigay ka sugan tahay sala allahu alayh wasalam ama sameeye ama amray qeyb ka midana waa ay fiican tahay wey qaacido guudna qaacido guud qaado meel walba oo dad ay ku kulmayaan in la qubaysto waa shay fiican wey waa dhaqan wanaagsan waa dhaqanka dadka muslimiinta lagu yaqaano wey waana sunno nebi salawaatu ullahi wasalaamu calayhi inuu amaakinta noocaas oo kale u qubaysan jiray marka wadaadku wuxuu kuu tirinayaa 7 shay oo ay sunno tahay qubayskooda guslu ljumuca
midka koowaad waxaa weeye guslu ljumuca, jumcada in loo qubaysto. markaad jimcada soo aadayso inaad qubaysato, wadaadku wuxuu yihi raximah llah waa sunno. okay, in la qubaysto maalinka jumcada waa sunno. macnaheedu waxaa weeye haddii aad timaaddo adigoon qubaysanin jimcihii aad timaaddo, markaa iyada jimcadaadii waa saxiix weeyaan, wax dembiyana kuma aadan dhicin marka uu sidaa wadaadku ku leeyahay. laakiin sida fiican oo ajarka aad ku helayso waxaa weeye inta aadan imaanin ka hor waa inaad soo qubaysato. inta aadan imaanin ka hor inaad soo qubaysato sunno wey. marka ibraahim haddaa rabto inaad lugaha fidsato dhinaca waa fidsan kartaa haddaa rabto. waxaa weeye mas'aladan marka aan ku leehay qubayska ma waajib baa jimcada, ibraahim baa maalin weydiinaya in la qubaysto ma waajib baa. waa arkaysaa wadaadku wuxuu ku daray waa sunno, waajib maaha. sidaa weeye sida madhabka shaaficiyadu uu qabo inay tahay sunno. waa jira aqwaal qowl ka soo horjeeda oo dhahayo waa waajib, laakiin waxaad dhegaysataa adilada kutusaysa in uu yahay sunno qubayska jumcada loo qubaystaa. waxaa ka mid a xadiid uu wariye samuratu bnu jundub radi allahu canhu ardaa can الnabiyi salى اllahu alيه wasalam qaal man tawadaأa ywma اljumucati fabiha wanicmat. wuxuu yihi samura, nabigaa yihi salى اllahu alيه wasalam, qofka weesaysta maalinka jumcada fabiha ay fabisunati akhada, sunnadii buu qaatay, wa nicmat, sunnadaana nicmo leh. waxa uu sameeyey waa wax fiican. hadduu usoo weesaysto oo keliya uusan soo qubaysanin arrin fiican buu sameeyey, dembi kuma dhicin. waman iktasala, qofka soo qubaysta laakiin maalinka jumcada falguslu afdalu, qubayskaa fadli badan. inaad qubaysato baa fadli badan. macnaheedu waa maxay? waajib maaha. imaam الnawowi raximah اllah wuxuu yihi wa fiihi daliilu calى anahu laysa biwaajib. xadiidkan wuxuu daliil u yahi kutusayaa hee qubays loo qubaystaa jimcada inuusan waajib ahayn. waxaa kaloo kutusaya xadiidkii caaisha radi allahu canha fi saxiixeyn. berigii hore waxa weeye dadkii hore waa xoolo dhaqatay ahaayeen, geel iyo ari iyo lo baa la raacaya, waa la foofaya. maalinkaasoo idil buu qofku soo maqnaanaya, isbuucoo idil buu raacaya. beeraley weye beertooday falanayaan, qofkii marka waa dhididayaa. waxaa dhici jirtay inuu qofka camalkiisii ama shaqadiisii isagoo ka soo noqday inuu yimaado masaajidka. markuu masaajidka yimid baa dadkii waxay dareemayaan maxaa la yidhahda qofkan urti ka soo baxaysay iyo dhididkii ku dhegay iyo wixii. nebigaa loo dacwooday sala allahu alay wasalam. markaasaa nebigu wuxuu leeyahay sala allahu alay wasalam, low anakum tatahartum liyowmikum haada, soo ma fiicnaan lahayn haddaad usoo qubaysan lahaydeen maalintan adinkoo nadiifa aad iman lahaydeen. riwaayo kalena waxay low iqtasaltum yowma aljumuca, soo ma fiicnaan lahaydeen haddaad soo qubaysan lahaydeen. macnaha nebigu wuxuu ka cabiray soo ma fiicnaan lahayn ee kama cabirin waa hee waa waajib kama cabirin salawaatu ullaahi wasalaamu calayh. idan halkaa aan uga tago. arrinka saddexaad iyo arrinka afaraad wadaadku wuxuu yihi walciideyn, labada ciidood, ciid ulfitri wa ciid uladxaa, in la qubaysta ayaguna waa sunno. ibnu cumar radi allahu canhu ardaa sidaasuu samayn jiray radia allahu canhuma wa ardaahuma. sidaasuu samayn jiray ibnu cumar, ciideynka oo usoo qubaysan jiray. idan waa min asunna in la qubaysto. walistisqaa, arrinka afraad ee sunnada waxaa weeye alistisqaa,
marka roob la-aan ay dhacdo roob doonayo waa inoo iman doonaayo sunno wey in la qubaysto. maxaa dhacay? waa la kulmaya, dad baa kulmaya. walkhusuufu walkusuuf waa arrinka lixaad iyo shanaad iyo lixaade waxaa weeye qoraxda iyo dayaxa marka ay madoobaadaan waa la kulmayaa, salaad baa la tukanayaa. salaadaa la tukado waxaa la dhahaa salaatu lkhusuuf wa salaatu lkusuuf, iyaguna waa inoo iman doonaan hadduu ilaahay qadaro. arrinka toddobaad waxaa weeye walguslu min gusli lmeyit. meydka waxaan soo marnay qof hadduu dhinto waxaa waajiba in la dhaqo sooma. qofkii dhaqay waxaa laga rabaa inuu qubaysto isagana. ma waajib baa inuu qubaysto? waa may, waa sunna inuu qubaysto, sunno weeye. qofkaa laga rabo inuu qubaysto. ibni cumar cabdullahi ibni cumar radi allahu canhuma wa ardaahuma wuxuu yihi kunaa nagsilu lmeyita, waxaan ahayn kuwa meydka dhaqa, fa minaa man yaktasil wa minaa man laa yaktasil. markaa meydka dhaqna kadib waxaa naga mid ahaa dad intay baxa soo qubaysta iyo dadaan soo qubaysan. marka xadiidka wuxuu kutusayaa ibni cumar radi allahu canhu saxaabada rasuulka dhaqankooda iyo siday ahaayeen ridwaan ullahi calayhim ajmaciin. maxaa loo qubaysanayaa? xikmada ku jirta maxay tahay? waxay wadaadadu yidhaahdaan naf meyd baa dhaqaysaa, waxaa ku ag yaalla jirkaa ruuxdii iyo nafti ku jirta ilaahay baa qaaday subxaana wa tacaala. maadaama allah uu qaaday oo jirki oo keliya uu ku ag yaallo, qofka waxaa ku dhacaya dacfi iyo futuur. wuxuu dareemahayaa qofkan laxadaad ka hor ama wax yar ka hor waa qubaysan jiray, maantana waa loo qubaynaya. fa caleyhi adigana sidaa kugu dhacay, futuurkaa iyo dacfigaa ku dhacay waxaa qaadayay dheheen oo nashaad siinaya firfircooni qubayska baa siinaya. arrinka sideedaad wadaadku wuxuu yihi raximah llah waalkaafiru idaa aslama. qofka gaalkaa marka uu soo islaamo oo shahaadateynka loo qabto waxaa sunnaa inuu qubaysto intaanu shahaadateynka loo qaban. wuxuu leeyahay hadduu yidhahdo inaa islaamaan rabaa, waxaan leenaha ma inaa muslim noqotaa rabtaa? haa, okay, bax oo soo qubayso. markaa soo qubaysato soo noqo. markaa kadib baa waxaan u qabanaynaa maxaa la yidhaahdaa ashahaadateynka. markaa kadib aa shahaado laleeyahy. waa garan abu hureyra radi allahu canhu ardaa xadiidka uu wariyey baa kutusahaya. nabigu wuxuu yihi sala allahu alay wasalam, nin loo keenay oo la yihi maxaa la yidhaha idhabuu bihi ilaa xaayit bani fulaan. ninkan inuu islaamu rabaa baa la yihi. markaasuu yihi wada oo kaxeeya oo waxaad geysaan xaayiti bani fulaan famuruuhu an yaktasil, ha soo qubaysto, hala faro inuu qubaysto. waa xadiid muttafaq caleyh. sidoo kale xadiidka qays ibni caasim markuu islaamayey radi allahu canhu ardaa, nebigu wuxuu faray sala allahu alayh wasalam an yaktasila bimaa'in wa sidrin, inuu qubaysto. sidoo kale sacd ibni mucaad iyo usayd ibni xudayr labadaaba markii ay rabeen inay muslim noqdaan ay islaamaan, hee waxay weydiiyeen muscab ibni cumayr oo madiine joogay iyo ascad ibnu zuraara, labadaa waxay weydiiyeen kayfa tasnacuuna idaa dakhaltum fi hada alamr, maxaad samaysaan markaad soo gelaysaan diintan? qaala waxay dhaheen naqtasilu wanashhadu shahaadat alxaq. marka hore waa qubaysanaa, waa isdaahirinaa, waa isnadiifinaa, kadibna waxaan akrinaa hee shahaadateynka baan la imaanaa. halkan waxaa ku soo arooray nebigu wuu amray sala allahu alayh wasalam, annaguna waxaan nidhi qubaysku waa sunno. waxaa laga qaatay qubaysku inuu sunno yahay. saxaabada kulligood waa wada islaameen soo ma ha. fa calayhi nabiga sala allahu alayh wasalam maanu wada amri jirin. dadka qaarna waa amray inay soo qubaystaan, dadka qaarna maanu amrin sala allahu alayh wasalam. arrinka sagaalaad walmajnuunu walmuqmaa calayhi idaa afaaqa. qofka waasha miirku ka tago ama qofka miir daboolma, labadaa marka ay soo toosaan oo ay caafimaadaan, ka miirki kii waalnaana kii miir daboolnani markuu soo tooso, kii xanuunsanaana markuu caafimaado waallaa oo miirkiisu usoo noqdo, labadaba qubaysaa laga rabaa. maxaa dhacay? waalida iyo miirka oo daboolmo waxay u tahay madina, waa wax keeni kara
inay qofka hore iyo gadaalba wax ka yimaadaan facalayhi taasaa waxaa loo amrayaa inuu qubaysto laleeyaha waa sunna wadaadku wuxuu yidhi arrinka tobnaad waalguslu cinda alixraam marka xaj ama cumro la xarmanayo in la qubaysto waa sunno iyadana 11 wuxuu yidhi walidukhuuli maka maka gelitaankeeda la galo ayadana waxaa la sunneeyaa hee in la qubaysto 12 walilwuquufi bicarafa carafa marka la istaagayo oo xajka ay tahay marka iyadaa waxaa sunnaa in la qubaysto qabla alwuquuf si loo istaago maxaa yeele dad baa kulmaa waa aniga qaacidaydi siiye meel walba oo dad badanu ay kulmayaan waxaa sunnaa in la qubaysto sawaa'an xadiida ku sugnaado ama yaanu ku sugnaanin oo nebiga ka sugnaan sala allahu alay wasalam waa wax fiican in la qubaysto wey markaan leenaha waa sunna taasaan uga jeednaa walilmabiiti bimusdelifa sidoo kale habeenka la seexanayo meesha la yihahdo musdelifo marka la xajinayo ayadana waa sunno walirami ljimaari athalaath marka saddexda dhagax la tuuranayo dhagaxyada maxaa la yihahdaa jamaraadka loo yaqaano waa u tegi doonaayo jamaraadka saddexda kala duwana iyadana in mid walba loo qubaysto mar walba maalin walboo la yimaado jamaraadkaas in loo qubaysto waa garana waliawaaf طwaafkana طawaafu اlquduum dawaafu اlifaada طawaafu اlwadaac intaba waxaan ugu tegi doonaa xajkeeda طawaaf haddaad samaynaysaba kacbadoo lagu wareego lagu طawaafo ayadana waa sunno in la qubaysto walisacyi in la socdo maa beyna safa walmarwa safa iyo marwe inta udhexaysa in la socdona in la qubaysto waa min aلsunna iyadana walidukhuuli madiinati الrasuuli salى اllahu عalayhi wasalam marka la gelahayo madiinada nebiga salى اllahu alيه wasalam marka la gelayo iyadana waxaa sunno ah hee in la qubaysto sunno wey maxaa yeelay waxaa ku duugan nebiga salى اllahu alيه wasalam waxaa ku yaala maxaa la yidhaahdaa masjid الnabowi masjidkii nebiga salى اllahu alيه wasalam baa ku yaalo adigu waxyaabaha wax la mid ay culimmadu sheegaanay yidhaahdaan wa ilaa ahar ma arag oranaya marka la gelaya madiinatu rasuul sala allahu alay wasalam in la qubaysto wey allaahuma markii wufuuddii nebiga u imanaysa sala allahu alay wasalam qubayska ay qubaysan jireen in laga qaataba mooye wax kaloo gooni kuu tusaaya ma arag 17 shay waxaa weye waxyaabaha loo sunneeyo qubayska meelaha loo sunneeyo wey oo ay sunnaha tahay in la qubaysto 17 inti kalena qubays waxay ku saabsanaa oo idil waa anagii ka dhammaanay wاlmasxu calى اlkhufeyn darsiga xiga waxaan ka bilaabi doonaa almasxu calى اlkhufeyn hadduu ilaah yidhaahdo tan intaan deris kale ku kulmayno darsigeena maantaas ku ekeynaynaa wallahu subxaanahu wa tacaala aclam.